السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام يا دمان أصحابته هالكان يقدر ونيسه ميل والبوجكتان يسلبوا مقال كيجو ومركا يدين سو قريبة مقال كان وحندونا يا إن أنك هذا حل بارد إلهان عمر ومركي يجوه الرئيسي كهذا الشيء وركي حلا يكون قاضي ميت كم ده عنصرية ده دار كان أمريكان إلهان عاو حي شيك تي قدبوا وين أو رباهنتا dalka Mareykanka si weyn u qabsaday waxyaalihii ilaahan ay sheegtay waxa kamid ahaa halka uu ka soo biloomay dagaalka u dhaxeeya ayada iyo Donald J. Trump sidoo kale ilaahan ay sheegtay ninkii xalay soo weeraray hadii uu san ahayn ninkii security-ga ahaa ee ka qabtay inay markaasi gacanteeda ay isaga dhicin lahayd oo ay feer iyo haraati markaasi ay doonaysay inay isaga dhiciso waxaase noqotay arintii ugu yaabka badnayd markii ilaahan Cumar Caawa ay kasoo dhaxqabatay boqolaal wariye ah oo ah kuwa ugu waaweyn ee dalkan Mareykanka wiil Soomaali ah oo ay tiri waxaan su'aasha siinayaa wiilka Soomaaliga ah inuu af Soomaali markaas ugu weydiiyo oo intuu af Soomaali ku weydiiyay ay af Soomaali ugu jawaabtay oo Mareykankii iyo warbaahintii oo dhan ay la yaaban yihiin inay geesinimo inta leeg ay gabadhaasi soo bandhigto bal caawa ana war idin haye soo dhawaada meel walba joogtaan iyo soo muuqaalkaygu marka idin soo gaarayba wali dhankayga waxay ka tahay 28 January 2026 waana markii labaad oo maanta hawada aynu ku kulmayno fadlan haddii aad channel ku cusubtiin amina horay subscribe u saarin channelka subscribe saarta si aad la socotaan muuqaalada ugu dambeeya oo aynu halkan ku soo gudbinayno maalin walba iyo waliba goor walba waxaan rabaa inaan idin sheego channelkayga maalmihii hadda la soo dhaafay culays baan ka dareemayaa riboodyo aan la aqoon ay kooxaha cunsuriga ah channelkayga ay ribood garanayaan waxyaalo badan baan ka dareemayaa marka fadlan like ta saara videoga subscribe gareeya haddii aad share gareyn kartaana muuqaalka share gareeya si riboodkaas iyo culayskaas aan ka dareemayo uu uga baxo channelkeena aad ayaad u mahadsantihiin madrasada baanaafic qur'aan online waa fursadii ubadkaaga ay ku baran lahaayeen qur'aanka kariimka iyo xifdintiisa axaadiista nabigeena hingaada tajwiidka afka carabiga caqiidada islaamka ducooyinka iyo adkaaraha kale waxaa fursadan qaaliga ku diyaariyay madrasada baanaafic qur'aan online adiga oo jooga gurigaaga ayaa ubadkaaga ku baranayaan tarbiyada iyo diinta islaamka haddii aad dhageysta ku sugan tahay qurbaha ka faa'iideyso fursadan qaaliga ayadoo dhammaan dadka yaryar iyo kuwa waaweynba ay ka wada qayb qaadan karaan ama ka faa'iideysan karaan fursadan si aad isaga diiwaan geliso ama u heshid macluumaad dheeraad ah la xiriir taleefanada shaashada ku qoran mahadsanid haddii aan bilaabo xildhibaanad ilhaan cumar ayaa markii ugu horeysay caawa ka hadashay weerarkii xalay uu ku soo qaaday ninka cunsuriga ah oo salingada sunta ah uu markaasi uu ku buufiyay hadalka ilhaan caawa ee hadashay wuxuu ahaa hadal ay saxaafadda Mareykanka oo dhan ay markaasi ay sugayaan waxaana banaanka u soo istaagay dhammaan saxaafadda iyo warbaahinta waaweyn ee dalka Mareykanka si bal qof walba uu ogaado waxa ay ilhaan ku jawaabi doonto maadaama xalay uu weeraray nin cunsuri ah marka waxay ahayd waraysi ay cid walba sugaysay wuxuu ahaa hadal ay warbaahinta oo dhan indhaha ku haysay waxa la fiirinayay ilhaan maxay oran doontaa miyay caroon doontaa masir bay sheegi doontaa ma wixii lagu buufiyay bay sheegi doontaa maxay ilhaan sheegi doontaa waa topic-gii ugu weynaa ee warbaahinta dalka Mareykanka ee caawa isha lagu hayay ilhaan su'aalihii la weydiiyay ayaa waxa kamid ahaa oo ay warbaahintu weydiisay ilhaan ma baqaysaa cabsi ma dareemaysaa maadaama xalay lagu weeraray ayay ahayd su'aashii ugu horeysay oo xildhibaan ilhaan cumar ay uga jawaabtay boqolaalkii wariye ee caawa la hadashay ilhaan waxay ku jawaabtay inay banaanka soo istaagto oo ay mar kale warbaahinta la hadasho oo ay hor taagan tahay ayaa waxay muujinaysaa bay tiri inaana baqaynin any fear after what happened to you last night at a town hall meeting? Well, I think my presence here should tell you that the fear and intimidation doesn't work on me. And, you know... marka cabsi gelin iyo handadaad dhankayga arrintaas arrin ku shaqaynaysa ma waxba la igama qaban karayo arrintaas bay tiri intaas markii ay tiri ayaa wax alla wixii banaanka dhoobnaa oo taageerayaasheedii ahaa ay hal mar sacab iyo qaylo ay jaanta isla heleen ilhaan oo hadalkeeda sii wadata ayaa waxay tiri hadallada ka imaanaya madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump iyo kooxaha kale ee cunsuriga ah ee asaga taageersan waxay doonayaan inay inta xilka iga cayriyaan oo aan cararo
oo aan boqo ayay doonayaan bay tiri waana sababta ay hadallada foosha xun ay warbaahinta igu soo marinayaan laakiin waxaan u dirayaa oo message ah in cabsi gelinta waxa ay isku diyaan iyo qaylada aysan ahayn mid aniga dhankayga wax ka bedelaysa waxba iga bedelaysa arintaasi ayay tiri Ilhaan Cumar waxay sidoo kale Ilhaan Cumar ay caawa ay ka hadashay eedeymaha tirada badan oo kooxaha cunsuriga ay warbaahinta soo marsinayaan muddooyinka hadda la soo dhaafay sida lacag 30 milyan ah ayay dhacday sida walaalkeed bay guursatay sida midka aflagaadooyinka noocaaya waxay tiri xaqiiqada baa shaqaysa wixii la doono waa lagu eedeyn karaa laakiin xaqiiqada way waxa xaqiiqada noqonaya haday xaqiiqa hayaana dabcan maray keen lahaayeen waxay sidoo kale Ilhaan Cumar caawa ay ka hadashay oo ay waliba ku dheeraatay laba arrimood oo kala duwan marka ugu horeysa in dil loogu hanjabayo oo ay tahay xildhibaanada kaliya ee loogu doondoon badan yahay in markaas la dilo hadalkaas runtii hadal weyn markaas noqonaya waxay sidoo kale ka hadashay arinta u dhaxaysa Trump iyo ayada goortii ay soo bilaabatay hadaynu ballanka Trump aynu ku hormarno Ilhaan Cumar waxay caawa ay sheegtay in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald J. Trump maalinkii uu xilka uu yimaaday termkiisii hore isagoo 2 asbuuc iyo meelaha jooga inuu markaasi uu ku bilaabay aflagaadayay xilliga uu ku bilaabayna inay ahayd xildhibaan golaha deegaanka hatta aysan congress aysan ahayn marka labadii sano oo mandatekiisii hore waxaan ahaa tiri xildhibaan deegaanka ah aflagaado iyo cay ayuuna igu bilaabay hatta ayadoo dadka reer Mareykan aysan aqoon badan ilahayn labadiisii sano oo dambe sidoo kalena ana congressa ayuu madaxweyne Donald J. Trump icaayay waxaana si weyn la iigu hanjabayay bay tiri in markaas la idilayo I became a freshman who nobody should have actually known I existed because I wielded no power to having the most death threats of any member of Congress. asagoo marka sida dhibaato iigu haya ayaa laga adkaaday oo xilka uu ka dagay oo Biden uu markaas uu xilka la wareegay mar alla markii Biden uu xilka u yimaaday waxa ay dhan meesha way ka baxeen bay tiri waxaana moodaa bay tiri in asaga ay markaas ay raaceen marka dambe uu dib u soo laabtayna isla meeshii ay ka bilaabatay bay tiri aflagaadada caayda nacaybka iyo waliba in la iigu hanjabayo in la idilayo He left office. Well, he was defeated. And Biden got elected. And for 4 years, it almost plummeted. waxay tiri waxaan ahay xildhibaanada kaliya ee sida ugu tirada badan loogu soo hanjabo in la dilayo markii loo fiiriyo Congress-ka dalka Mareykanka oo dhan bay tiri markaysa taasoo markii dambana sababtay bay tiri in ilaa iyo 6 askari oo kala duwan ay ula socdaan bay tiri xaaladayda daqiiqad wax walba oo aan sameeyo iyo meel walba lacagta dhigo inay markaas ka warqabaan aniga iyo waliba qoyskayga tiri To the point where I had to have 6 Capitol Police officers providing 24-hour detail to me and my family. marka Ilhaan Caaw waxay sheegtay in Trump iyo kooxdiisu ay yihiin dadka hadii bari la dilo iyo hadii ay dhibaato soo gaarto cid laga xisaabtamayo ay si dadban markaas u sheegtay waxay sheegtay in markii hore Trump joogana ay xaaladan ku sugnayd markuu xilka ka tagayna ay xaaladaasi istaagtay haddana markuu soo laabtay in sidaa oo kale ay markaasi ay dib u bilaabatay in dil loogu hanjabayo marka Ilhaan Caaw waxay si toos ah uga hadashay in xaaladeeda amni ay markaasi tahay mid runtii qatar ku jirta oo maalin walbaba loogu hanjabayo in la dilayo iyo inay ciidamo aad u tiro badan oo ilaa 6 ka badan ay amnigeeda ilaalinayaan waliba kuwa loo yaqaano Capital Police-ka waa kuwa Washington DC ka shaqeeya oo Congress-ka markaasi ilaaliya dabcan xagga markay tagto ayaa waxa la daba dhigaya ilaa 6 askari in ka badan si amnigeeda iyo xaaladeeda markaasi loola socdo Ilhaan waxay sidoo kale ay ka hadashay ninkii xalay soo weeraray oo cunsuriga ahaa ee sunta ku buufiyay dabcan ilaa ya hadda booliisku waxay ku maqayeen investigation la xiriira wixii lagu buufiyay maxay ahaayeen wali reportkaasi ma uusan soo laabanin dabcan laab baa loo diri doonaa wuu soo laaban doonaa markii uu soo laabto ayaanu ka hadli doonaa laakiin waxay sheegtay ninkaas wixii ka caraysiiyay oo inuu igu soo duulo keenay ayaa waxay tahay bay tiri amarkii Trump ka soo baxay ee ahaa in Soomaalida la taqaana deportation lagu sameeyo waa midii temporary protection status-ki la oran jiray ayaa markaa waxa loo qabay bay tiri dad badan in oo Soomaali ah ama qof walba oo Soomaali ah in la tarxiili doono markii uu arkay bay tiri
inaysan saameyn ku yeelanin dadka Soomaaliyeed ee gobolka degan arintaasi uu ka qaaday darteed ayuu aniga ii soo weeraray tiri wuxuuna ii arkaabay tiri asaga iyo waliba dad badan inaan ahay qofka hortaagan in Soomaalida la xaabiyo ayaa la arkaabay tiri. And last night, the man that attacked me was specifically upset that Trump's order to deport Somalis was not yielding enough deportations of Somalis. So he wanted to come get the person he thought was protecting the Somalis. laakiin qodobkii ugu cajiibsanaa oo Ilhaan Cumar ay caawa ay ka hadashay runtii anuguna aan meeshii aan fadhiintay ka istaagay aan koofida bixiyayba bal qabo waan taagnaa markaan dhageysanayay koofida madaxa iigu jirtay banaanka waa freezing wallahi koofida waan bixiyay hadal aanan runtii ka filaynin oo aan islaahay gabadhan waa gifted way gabadhan waa qof Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu Soomaalida uu ka dhaliyay qof very talented ah baa gifted kala yiraahdaa qofka gifted kala yiraahdo waa qofka awood rabbaani ah Ilaahay uu siiyay ama skill ama xirfad rabbaani ah Ilaahay uu siiyay ayaa waxa la yiraahdaa gifted marka waa gabar gifted ah way markay afar sax su'aalood ka jawaabtay ayagoo la isku haysto oo warbaahimaha waaweyn ay isku garbinayaan inay su'aalo weydiiyaan ayay tiri hal joojiyay tiri aamus hal su'aal baan ka jawaabaya su'aashaas aan ka jawaabayana wiilkaas wariyaha ah ee Soomaaliga ah ayaan siinaya saddex su'aalood oo ka horeysay bis ay ka jawaabta afar su'aal bay su'aashii afraad bay tiri hal su'aal baan rabaa inaan ka jawaabo su'aal daba kama jawaabay wiilkaas aan siinaya wiilkii bay siisay wiilka ay siisay waa Liibaan Show yarka la yiraahdo ee wariyaha reer Minneapolis marka wuxuu damacay inuu af Ingiriisi ku weydiiyo. So hopefully that answers your question. We'll take one more question. We'll take one more question from the Somali reporters here. Last night, what happened was shock to us. You're not going to ask it in Somali? Okay. markaas tir Soomaaliga ma weydiinaysid come on bay ku tiri tawi ku qosashay meeshii oo dhan waa la aamusa qof walba wuu yaab waxay noqotay arin cid markaasi filaysay aysan jirinin waayo de dhowrka boqol ee milyan 340 milyan caawa indhaha ku haysa Ilhaan waxay sheegi doonto oo warbaahin walba ma CNN ba ma Fox ba macala ku cunsuriga ah ay dhooban yihiin meesha oo intaas soo saxaafad ay dhooban tahay ay tiri af Soomaaliga ma weydiinaysid iyo halkaas wiil oo wariyaha Soomaaliga waliba Soomaaliga ayaan siinaya bitir markaas wiilkii su'aashii wuxuu ku weydiiyay af Soomaali xalay waxaan ku dhacay arrin weerarka ugu soo qaaday anigu meesha ayaan fadhiyay ninkaasi feerka aad u saylahaysay marka dagaal ma barantay masaacid wuxuu yiri Ilhaan ninkii cunsuriga xalay markii uu soo weeraray dagaal baad feer baad la aaday marka Ilhaan waxa la oran karayaa inay dagaal baratay markaasay inta qosashay bay oga jawaabtay waxay ku tiri Liibaan aniga waa taqaanaa wiilal baa ila dhashay dagaalkan waa ku fiican marka ninkaas xalay booliiska iga qabtay ma ahane ilka harabina ka jabiyo hasay ulaada way noqonaysaa Well, Liibaan ani aad waasna qaana. And inta dad oo Soomaali yaqaano way og yihiin dagaalka inaan ku fiicanahay way og yihiin haddee gabdhaha Soomaalida oo wiilal walaalo la soo koro inay barteen sidii qof la iskaga dhiciyo marka waxaan leeyahay haddii uusan security-gayga ninkaas dhulka ula dhici lahayn gacanteeda way gaari lahayd dadka meesha jooga oo dhan waa dad ajaaniba intaas oo warbaahin baa joogta kulligood wax laga hadlayo ma yaqaan marka inay ku dhacdo inay luuqadeeda ku hadasho oo ay warbaahinta Mareykanka dhaxmarsiiso wiil Soomaali ana ay ku dhiirigeliso luuqadiisa inuu ku hadlo waa geesinimo aan wali ku arag siyaasi Soomaali aniga caawa wixii ka dambeeya waxay iigu qoran tahay dadka halyeeyada ah ee Soomaaliyeed ee sidoodaba taariikhda galbi ku jirta gabadha Soomaalidu qofkooda macnaha la mid lagu qabtaa gabadhaasu aniga arinteeda caawan ka bax adiga daawanaya muuqaalka intaan ku soo koobaya ma aragtay qof Soomaali ah oo waliba baarlamaanka Mareykanka oo kale ku jira sida ugu dhiiran karaya inuu luuqadiisa iyo Soomaalinimadiisa inuu ku faano oo aan ka baqayn dhigi karaya Soomaali ugu weydii maxaa u baqaysaa Soomaaliga inta ka booda kuwa kale ajaanibta ay gacan taaganay yiraahdo kama jawaabayo wiilka Soomaaliga uga jawaabaya
waxay siinaysaa ixtiraam bay wiilka Soomaaliga siisa inuu Soomaali yahay bay sheegtay luqadiisii bay tir ku hadal luqadiisii bay ugu jawaabtay su'aashaas marka ciday u direysay Soomaali bay ahayd ayadoo nacaybkaad aragtay la nacib yahay sida loo cayrsanayo midabkeeda la diidan yahay ay waxay diiday inay luqadeeda ka cararto iyo inay dadkeeda ka cararto iyo af Soomaali luqadeeda ka cararto Soomaalinimadu waxay macna leedahay qofka markuu asagu ku faaro wallahi caaw hadalkaas agteeda wuxuu ka qoran yahay hadal weyn bal adiga daawanaya inoo sheeg agtaada muxuu ka qoran yahay fadal muuqaalkii soo gaaro like saara saaxiibtii asxaabadeen la wadaaga channelka xogaa culaysa iga haysta hala share gareeyo hala subscribe gareeyo intaas aan muuqaalkan ku soo koobayn dib isaga soo laaban waxaan ka tagaysaa naadino assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh